بسم الله الرحمن الرحيم. dadka kuwa badan oo ka mid ihi waxba kala ma socdaan qisada nebi daanyaal oo ah nebigii ugu dambeeyey ee la aasay ama la xabaalay. haddaba inta aynaan ka warramin culimmada islaamku arrintan waxa ay ka yidhaahdeen bal si guud mar ah oo kooban aynu nebigan uga warranno. taariikhda yuhuudda waxaynu ku soo aragnay inuu ilaahay si joogta ah reer banu israa'iil uu nebiye ugu soo diri jiray. marka uu midi dhintaba mid cusub ayaa loo soo saari jiray, waxaana marmarka qaar dhici jirtay in laba nebi ama saddex nebi ay ku kulmi jireen oo uu eebba isku waqti usoo diri jiray. yuhuuddu nimcadaas weyn way ka kufriyeen oo rusushii uu ilaahay usoo diray way ka gacan saydheen, waxaana uu ibnu cabbaas sheegay in ay dileen yuhuuddu 30 ka mid ah nebiyadii uu ilaahay usoo diray. culimada qaar ka midna waxaba ay sheegeen yuhuuddu nebiyadii ay dileen in ay tiradoodu gaadhayso 70 nebi. markii ay naxariistii nebiyadooda ka gaaloobeen waxa uu eebba ku salliday boqorro arxandaran oo aanu naxariisan. boqorradaas waxaa ka mid ahaa bukhuntusar oo sidii aynu imtixaanaheennii kusoo aragnay gumaaday yuhuudda, waxaana uu ka qaxiyey oo ka barakaciyey falastiin, taas oo dhalisay muddo 50 sano ah in aan yuhuudi dambe lagu arkin dhulkaas. waxaana ay qaar ka mid ahi u qaxeen masar, halka intii kalena uu bukhuntusar keenay dhulkii baabiliyiinta. nebi daanyaal iyo saddexdiisii saaxiib ee la kala odhan jiray casriya, mashaa'iil iyo xananiya waxa ay ka mid ahaayeen dadkii uu bukhuntusar usoo qaxiyey dhulka baabiliyiinta ama kaldaaniyiinta. waxaana la sheegaa saddexdiisii saaxiib inay shaqaale ka noqdeen qasrigii boqorka, isagiina uu muddo kooban ku bartay luqadii kaldaaniyiinta. muddo kadib ayaa waxaa riyooday bukhuntusar, waxaana uu isugu yaray dhammaan wadaadadii dadkii faaliyayaasha ahaa, waxaana uu ugu hanjabay haddii ay u fasiri waayeen riyadiisa in uu layn doono. nimankii waa ay garan waayeen tafsiirka riyadaas, xaaladuna aada iyo aad ayay ugu adkaatay. waxaana uu ilaahay nebi daanyaal u waxyooday boqorku riyadii uu ku riyooday iyo weliba tafsiirkeeda. daanyaalle waxa uu u yimi bukhuntusar, waxa uu sideedii ugu sheegay riyadii uu ku riyooday, isaga oo qaabkii ay ahaydna uga warramay, siduu ilaahay ugu waxyooday ee runtahaydna uu ugu tafsiray. bukhuntusar aada iyo aad ayaa ula yaabay cilmi badnaanta nebi daanyaal iyo weliba sida uu ku ogaaday riyadiisii, waxaana ay tani sabab u noqotay inuu soo dhoweystay una magacaabo inuu noqdo xukaanta iyo wadaadada magaalada kan ugu sarreeya ee madaxda u ah. inkasta oo uu ilaahay nebiye aada u fara badan bini-aadanka usoo diray, haddana tiro yar oo kooban oo rususha ka mid ah ayuu eebba qur-aankiisa inoogu sheegay. nebi daanyaalle waxa uu ka mid yahay rususha aanu ilaahay inoogu sheegin qur-aankiisa kariimka ah, waxaase qisooyinka inta badan soo wariyey ahlu kitaabka oo ay diinteennu inoo bannaysay wararkooda wixii aan gaf ahayn in aynu qaadan karno. sidoo kalena waxaa jira xadiisyo ay culimmadu ku muransan tahay ansixitaankiisa, kaas oo nebigan ka warramaya. ugu dambeynta waxa ay sheegeen ahlu kitaabku in nebi daanyaal iyo boqorkii wakhtigaa talinayay ay dhex martay saaxiibtinimo weyn. kuwo ka mid ah wasiiradii boqorka ayaa ka hinaasay xidhiidhka adag ee dhex maray daanyaal iyo boqorka, waxaana ay u dhigeen shirqool iyo dabin. inta ay wasiiradii u yimaadeen boqorkii ayay ku yidhaahdeen, boqorow, dadkan dowladdaada ku hoos nooli mid walba diin gaar ah ayaa uu haystaa, sidaa awgeed bishan soo socota dhammaan dadka oo dhammi adiga ha ku caabudaan oo ha ku cibaadaystaan. qofkii amarkaaga diidana ciqaab adag aynu marino. boqorkii si iimaan la-aan ah ayaa uu talada ugu riyaaqay, waxaana uu kolkiiba soo saaray qaraar. haddaba dadkii waa ay u hoggaansameen amarkaas, laakiin nebi daanyaal isagu waa uu diiday, waxaana uu u tukaday ilaahay oo keliya. tanina waxa ay kaga cadhaysiisay boqorkii oo waxa uu amray in la dilo. waxaa jiri jiray god ballaadhan oo ay libaaxyo gaajaysana ku jiri jireen, kaas ayaana qofka la dilaya lagu ridi jiray oo kolkiiba libaaxyadaas ayaa waslad u goosan jiray. nebi daanyaalna waxay ugu tala galeen in qaabkaas loo dilo. nasiib wanaagsan markii godka lagu tuuray, libaaxyadii sidii caadada u ahayd iyaga oo hamuumsan kuma aysan soo yaacin. inta ay si degan usoo socdeen ayay labada jeeni oo hore laabeen oo dhulka dhigeen, kadibna u sujuudeen nebiga. waqtiyadaasna sujuuddu waxay ahayd mid salaan u taagan. boqorkii oo filayay in ay goor horeba libaaxyadii cuneen ayaa arkay arrintan ugubka ah, godkii oo xasiloon iyo daanyaal oo si degan u dhex fadhiya libaaxyadii, waxaana ay tani dhalisay in ay sii siyaado sumcaddii iyo sharaftii uu lahaa nebi daanyaal. intaasi waa sooyaal kooban oo ku saabsan nebi daanyaal. haddaba daawadayaal, xilligii cumar bin khadaab waxa ay muslimiintu furteen dhul ballaadhan, waxaana ay dumiyeen dowladdii furus oo ka mid ahayd dowladihii xilligaa ugu awooda badnaa adduunka. waqtiyadii ay socdeen dagaaladaasi waxaa ciidan ka mid ah geeshkii muslimiintu ay furteen magaalada tustar, waxaana ciidanka hogaaminayay abuu muusa al ashcari. asxaabigani waxa uu arkay meel si fiican ay u dhiseen dadka deegaanku. markii uu soo galayna waxa uu ku arkay sariir dhex taalla dhismahaas
oo uu nin meyd ahi saaran yahay. ninkani waxa uu u muuqday nin hurda ama mid hadda dhintay oo jidhkiisu waa uu nuurayay, wax isbeddel ahina kama aysan muuqan. odayaashii magaalada ayaa uu weydiiyey xogta meydkan, iyagiina waxay u sheegeen in uu yahay nebi daanyaal, kaas oo ay ka barakaysan jireen jidhkiisa. gaar ahaanna waqtiyada ay abaaraha kulili dhacaan waxa ay meydkiisa usoo saari jireen dibadda oo qoraxda ayay u dhigi jireen. isla judhiiba daruuro wada biyeysan ayaa cirka xidhi jiray, markiibana roob ayaa soo hoori jiray. abu muuse al-ashcari waxa uu warqad uga xog warramayo arrinta nebi daanyaal uu usoo diray amiirkii muslimiinta ee cumar bin khadaab. sida uu caalimkii weynaa ee ibnu kasiir sheegayna, cumar waxa uu muuse ku amray inuu maalintii qodo 13 xabaalood oo aada u kala fogfog, habeennimadiina uu mid ka mid ah si qarsoodi ah ugu rido, dhammaan xabaalahaasna uu baabiyo oo uu dhulka la simo. abu muuse al-ashcarina waxa uu yeelay sidii uu cumar ku amray, oo maalinnimadii inta uu qoday 13 xabaalood oo kala fogfog ayuu habeennimadii mid ka mid ah si qarsoodi ah ugu aasay. kadibna waxa uu baabiyey dhammaan xabaalihii oo dhulka ayaa uu la simay si aanay dadku ula bixin. cumar waxa uu sidan u sameynayay in aanay dadku mar dambe ku fidnoobin jidhka nebigaas, sidoo kale meydka nebiga la asturo oo la xabaalo. haddaba daawadayaal, sidaas ayaa uu nebi daanyaal ku noqday nebigii ugu dambeeyey ee la aaso ama la xabaalo. dabcan nebiyada waxa ugu nolol dambeeyey nebi maxamed, isaga ayaana lagu soo khatimay rususha. daanyaalna waxa uu dhintay ku dhowaad 1000 sano ka hor geeridii nebi maxamed.